inkastoo dad badan oo Soomaaliyeed aanay ku baraarugsanayn waxtarka iyo faa'iidooyinka ay leedahay dhaqashada shinnidu, haddana Maxamed Sheekh Muumin oo ku nool magaalada Dhagaxbuur ee deegaanka Soomaalidu waxa uu muddo 26 sano ku howlanaa dhaqashada shinnida oo ah kheyraad aanay dad badan aqoonin habka casriga ah ee looga faa'iideysto, balse soo saarta malabka oo laga helo faa'iidooyin aan la soo koobi karin. Maxamed Sheekh Muumin waxa uu sheegay in dhaqashada shinnida loogu tabco sida xoolaha oo kale, isla markaana ay saameyn ku yeelato xilliyada abaarta, halka xilliga barwaaqada ay tahay fursad shaqo oo wanaagsan. lacagtu fiican yahay waa waxyaalaha matalan ugu fiican ee matalan quraankuna uu sheegay arsaaqadeeduna xalaasha ay tahay waqtiyaalaha ay matalan barwaaqada oo sida dayrta oo kale iyo xagaagii oo kale iyo way fiican tahay marka way leedahay way fiican tahay aad bay fiican tahay waqtiga ayna abaar tahay صح waqtiga abaar tahay laakiin hadii waqti abaar dhacdo waa sida xawayaanka kale oo kale weeye. هاي محمد شيخو امسك كهولنا باشا dhaqashada 26 sanadood baan ka shaqeynay haye 26 sano aan baad maamul ka shaqeynay oo markeedii iyo hawlaheeda aan bas ku haynay saxaradeeda waxaan aniga sameeyay marka 26 sano gacanta ku hayay tabiicadeedu waa kolba nooc horta anaga intaan joogay 26 sano wax dhibaato inoo geystay ma jirto haye hadii baashan hadda imika halkaas iska taala haddaad adigu deefaraha la gasho oo adigu dhibaato ku sameeyso way waxba ku yeelaysaa صح لكن هذا أدو دبعته وجيسنين ولا أدو فرفرينين حكم يليس كويس كلا خال نولان نسا كلا نولان نسا ها كل جزء مسكين يليسون ونسك شقته يساوي ونسوه يليسون لكن هذا أدو فرح لقشوا طاني مكوات تنا طاني ممكن تنفرق فرقعته ساوي ولا قالوا هو يوقفون لكن هذا هالكذا ساس ودايو dad badan baa aaminsan in aan laga shaqeyn karin ama shaqadeedu dhib badan tahay oo xirfadda aan fahansaneyn maxaa dadkaas u sheegaysaa aan laga shaqeyn karin misir wax aan laga shaqeyn karin qofka hadduu ku tala galo uu ka shaqeyn karin misir imika matalan habeenkii oo kale inta badan waxay ku fiican tahay in laga shaqeeyo habeenkii marka malabka laga guranayo sababta oo ah maalintii waxa laga yaabaa in dadka wax yeesho laakiin habeenkii qiiq baa lagu waxaynaya qiiq yar baad ku waxaynaysaa iyaduna habeenkii inta badan ma kacdo oo koroma duusho habeenkii marka qofku wuxuu ka shaqeyn karin ma jiro wax hadaad ku tala gasho waad ka shaqeyn karaysaa inta aad ka howlaneedeen baashan dhaqashadeeda ka waran xaafadda iyo wax dhibaato ah idin ma geysto dhibaato ma geysato baashan horta nacab bay leedahay waxay noo nahay sida xoolaha oo kale hadda imika matalan xabad dhulka taala hadaad arko anigu waan ka naxaya waan qaadaya caruurta qaadaya xaaska qaadaya ruux waliba hadda imika matalan intay baxdo geedahaas kale ay fuusho markaaba inta la soo qayliya lagu oranaya shinni baa baxday soo carar hadda imika tan saaka markii anoo xaafadda joogay baa la soo sheegay saamaha hadaarada jooga ee halka fadhiya iyo xabadda halka shinnida ay kaliya waa isku mid weey xaafadda waa isku mid shinnida xoolaydin noqotay marka ma oran karaa xoolay noo noqotay waliba xoolaba aad fiican weey noo noqotaa haye kuwan raashin bay ka doonayo inta raashin ba ka doonayso hadda marka arigan oo kale raashin baa loo soo qaadaa iyada raashinkeedu waxa weeyaan halka biyo u yaala oo halka biyo aan u dhignay oo barkada ka cabtaa wax kale oo raashin aan siinaa ma uu jiro inta kale wada jiyaadkii oo kale tahay wax yar siinaa mooyaan waxa noo macnaysan tahay nooca xoolaha kale baydin ku macnaysan tahay inuu soo warantaa waliba aan ka jecelahay hadii hal shay wax noqdo in qaalin geeli ka dhimatay kama duwan baahida loo qabo malab saafiya in deegaankeenu iyo dadkeenu ay helaan oo badanaa meelo kale laga keeno waa mid inta lag basara inaan malab helo saafi ah boqolkiiba baan u baahanahay si kastaba ha ahaatee dhalinyarada deegaanka Soomaalida ayaa marar badan dowladda ku eedeeya in aanay shaqo u abuurin iyo in aanay deegaanka Soomaalida ka jirin shaqooyin ay ka shaqeeyaan, balse tani waa shaqo furan oo tusaale oo ah shaqooyin kale oo deegaanka buuxa, isla markaana loo baahan yahay in dhalinyaradu ay ku baraarugaan.